niyo haa si wacan iskuula macalinka ahaa jiray oo muqdisho ku yaal oo dadka aragga la wax bari jiray muddo ku jiray saasay tahay waxaan ahaa ruux wariye ah labada gelin hooyashaas ku hayay dadkaas aragga la si maxay ahayd oo lacaglaan ku baray gelinka hore gelinka dambana shaqada warinimada ku jiray marka hore marka soo golo magaalka وشكهد عرورته حسيحضان موسيقى مان موسيقى حبته برشديده وحدهن بغور كنا سنة كان وحسبك ما هنا وحكالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمان أصحابتك وحرن برتيد يوتيوب كمال والبا أو أدري كتوكتان هداي هبين إدين تاينا هبين وناكسن هداي مالين إدين تاينا مالين وناكسن انتا كدب ما انتا يوحان ورئيس الله يلان يا wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah misne la aragga magaciisa waxa la yiraahdaa Xuseen Dalbile waa wiil dhalinyaro ah kuna nool dalka Turkiga aniga iyo Xuseen Dalbile waxaan isku baranay Clubhouse waxa dhacday in Xuseen Dalbile oo soo qabsado qol aan aniga saaranahay Clubhouse-ka kadibna iga codsado inaan wareysi la yeesho si uu iga sheekeeyo noloshiisa Xuseen Dalbile waa nin wariye ahaa jiray sidoo kalena ah YouTuber wuxuu doonayaa in uu idin la wadaago noloshiisa maadaama uu yahay shakhsi aragga sidoo kalena yahay nin activist ah ama YouTuber ah sidoo kalena yaqaano xirfado badan Xuseen Dalbile kusoo dhawow barnaamijka magacaaga oo saddexan dadka la wadaag waa lagu daawanayaa ku socotay Ayub Carlo ku salaamay Ayub Ahmed Xuseen adigiyo daawadayaasha ku xiran Ayub Carlo waa Xuseen Maxamuud Xuseen oo loo yaqaan Dalbile sa ka dhawaajisa waa meesha isku baranay aa sheegtay si rasmi ah waxa way Clubhouse waan adiga isku baranay waa tahay marka Xuseen Dalbile ku soco niyo maxaa la dhahayay horta aniga marka taariikhdii ka warramo waxaan ahay qof arag waxaan beelay anigoo 5 jir ah deetana waxba maxay ahayd kama quursanin waxaan bartay ma sha Allah heerka dugsiga waan dhameeyay shahaado waa wata maanta ma sha Allah waxa wata maxay ahayd certificate oo IT iyo marketing saasay tahay waxaan ahay qof wariye ah oo xirfadiisa xigta maxay ahayd in dadka wax soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan wali waxaan ka shaqeeyaa dadka nugul oo aan codkooda heerkooda maxay ahayd meel sare gaarsiiyo oo aan uga hadlo Xuseen macnaha adiga walaal waxaad aragga beeshay adigoo 5 sano jira sax waa sidoo kale waxaad dhameysay dugsi sare waxaadna haysataa shahaado jaamacadeed oo IT waa dugsi sare maya IT macnaheedu waxa waa certificate waa okay dugsi sare dhameeday waxbarashadaada waa ilaa dugsi sare ma sha Allah waliba waxaad indha beeshay adigoo 5 sano jira dugsi sare waa dhameeday ma sha Allah si wanaagsan sameeyay okay ma jiraan shaqooyin aad soo qabatay intii aad joogtay dalka maadaama hadda aad joogto Turkiga niyo haa si wacan iskuula macalinka ahaa jiray oo muqdisho ku yaal oo dadka aragga la wax bari jiray muddo ku jiray saasay tahay waxaan ahaa ruux wariye ah labada gelin hooyashaas ku hayay dadkaas aragga la si maxay ahayd oo lacaglaan ku baray gelinka hore gelinka dambana shaqada warinimada ku jiray fahmay waa gartay idaacadee soo shaqeeyay أنا إذا عدد بنا أصول شقيني هو ومقدش كيالو إذا عدد هذا وجود بيسي أن كسر شقية مدة كشري وإذا على هذا الراديو دريال وأن كها حتى أجا سمي إذا عدد كسر نقدي واقرتي حسين Dalbile ما قصنا جفتها نيوز عاو أنا سنتك مقري يوبو أفري لو تنسى نجرا ما فهمت ما شاء الله نيراتها واقرتي وين Xuseen Dalbile sida aan wada ogsoonahay dadka baahiyaha gaarka qaba haday noqoto kuwa aragga la haday noqoto kuwa maaragtay lugaha la gacmaha la mar walba caqabadooyin badan ayay la kulmaan maadaama aad ii sheegtay in aad indha beeshay adigoo 5 jir ah haddana aad tahay 24 jir
wax caqabada ah oo aad la kulantay ma jiraan yaraantaadii heerkaaga waxbarasho hadday noqoto shaqada hadday noqoto anything wax caqabada ah ama cunsurinimo ah ama faquuq ah ama yasitaan ah ma la kulantay Xuseenow wallahi xaqiiqatan niyow ayuu hadda wadanka aad joogtid dadka markii baahiyaha gaar qabo markii la arko waa xishmeeya tixgelin leeyihiin laakiin Soomaaliya markaa joogtid waxa waaye waa yasitaanka iska badan aniga muddada aan ku jiray hoolihii shaqo waan dhibaatooyin badan waa la kulmay qaar markaa oo shaqooyinka meel ka doonto wuxuu ku leeyihiin niyow adiga wax u jeedin ma shaqaysan kartid ku shaqaysanay ku leeyihiin niyow iskuri iska fariiso tasboran ku diray inuu ku dhaha laga yaabo maxay taniyo iska daa shaqo ku dhaaniyo adaa maxay taada u yaabane war adoo dhiga waa shaqaysana saaxiibo iyo ogolo fursad isi ani bandhiga la arki doon waxyaalo aan qabto may ku leeyahay laakiin hadda marka dambe wallahi ani heer waxaan gaaray idaacada inay aaminaan oo kalsooni muhiim idaacada hadda ugu dambeysay soo shaqeynaa ani agaasimaha hoolo waxaa hayay ayuu oo muhiim ah xitaa shaqaalihi xitaa ma laga rabo booska qaban lahayn oo agaasinka qabanaya ahaa oo maxay sheekooyinka idaacada ana soo saari jiray ana editing garay jiray oo Adobe Audition waxyaalahaas oo kale ana sameey jiray oo maxaa la dhahay duubi jiray ana jarjay waa maasantahay Xuseen xiriir jacayl ama xasaawo ma sameeyay weliga neon si wanaagsan aniga waxa waaye waa xiriir soo sameeyay faantay jacayl si wanaagsan waa soo sameeyay jacaylkii ugu horeeyay maxay ahayd waa sahlan ma sha Allah waan guursaday laakiin waxa ku dhamaan meesha calaf ayaa la mugta waa maxay calafka meesha ku ekaa laakiin waa soo guursaday aniga xaqiiqatan marka ku hadlo okay أولاد ما هيستا ما إلما ما هيستنيو حسين ما شاء الله هدي أتسوق وشتي وما ركتي شعير كاي كوجوري أتعرفتي وأريم وناكسن قفك أديك جورستي أما نرش اللو ذاكتي ما قف باهيها جارك قواء مسوا قف عادي وقف وحوجي وتامية وحبك مغنين ما شاء الله سلوت واتهي حسين هذا ما سنتهي روح ذا بدن أديك شكيسي هيركاي وحبرشو يشغلادي يجورتي أدين دبيشي وحيابيه على صوق لنتي وكاجا مهد علنيا طبعا دتك هذا كداونا يعني وحواي وأي أركدونان إن شاء الله sidoo kale ma jiraan wax aad hadda ummadda Soomaaliyeed ka codsanayso maadaama aad tahay nin YouTuber ah oo aad ii sheegtay in aad nacab tahay in aad gacan horsato qof bini'aadan adigoo heli kara inaad adiga shaqaysato wallahi xaqiiqatan ayub ujeedka aan kula soo xiriir wuxuu ahaa maalintii Clubhouse meel public xitaa ku sheegay ogatoma aan ku dhahay inay garab istaagtaan rabaa aniga horta sideeda badan waxa ka soo horjeeda in qof gacanta u hoorsado oo aan walaalkay maanta isi wax isi maanta qofka hadii oo sida malaa'ig loo dabto ku baro adiga waa daba kartaa laakiin maalmo isi hada dheerid maxay ahayd hormar ma gaaraysid marka horta walaalihii Soomaaliyeed meel walba iyo waxa ka codsanaya YouTube-kayga inay maxay ahayd ila saaxiibaan subscribe soo siiyaan maxay ahayd ii daawadaan ila jiraan moogtaa maanta kaliya muhiimada qofka inuu wax ku siiyo maahan waa dhiirigelin naftarkeeda muhiim ah aniga wax walba waa qabsan karaya maxay ahayd YouTube-kiga ka arki kartiin asxaabta kulli waxaan leeyahay ligu soo yaaco saas ma dhijirna ayuu YouTube-kaaga maxaa kuugu qoran dadka la wadaag iyo waxa ku qoran dalbile 32 ayaa ku qoran waa DALBIL inta ku soo qoraa inta waa kaasa meesha saaran YouTube-kiisa raaca subscribe u saara walaalayaal ayuu la su'aal ku weydiin doonaa laakiin adiga ii wad marka ana su'aal ku weydiin doonaa laakiin hay walaalayaal waxaan nahay dad muslima waxaan nahay dad Soomaaliyeed dadka nooga baahan inaan caawino garab istaagno kala shaqeyno farxadooda waa dadka aan kale waxa kamid ah Xuseen Dalbile waa wiil Soomaaliyeed waa wiil karti leh waa wiil hadaf leh waa wiil isku kalsoon
waa wiil codkar ah waa wiil ilaahay siiyey kalsooni buuxda wuxuu rabaa in YouTube-kan uu ka helo wixii ilaahay ugu qoray wuxuuna ka cararayaa inuu qof bini aadana wax weydiisto xuseen dalbile lacag idin kama codsanayo xuseen dalbile idinma dhahayo waxa siiya xuseen dalbile wuxuu idin ka codsanayaa in aad subscribe u saartaan channelkiisa ninkan dhalinyarada ah ee aniga hadda aan wareysanayo wuxuu la'yahay aragga wuxuu awoodaa inuu sameeyo wax anigaan aan sameey karin ninkan fiidiyowga asaga editing gareysan kara sida uu idin sheegay idaacad buu agaasimo ka ahay in idaacad agaasimo laga noqdo wax sahlan maaha aniga 6 waa qabaa laakiin ma gaarin mana noqon agaasimo weligay aniga hadda idin la hadlayo weligay ma dhameen dugsi sare school waxaan uga tagay class 4 laakiin xuseen dalbile asagoo 5 sano ku indhabeelay ayuu dugsi sare ka baxay taasna waxay muujinaysaa qofku haddii uu aragga la yahay qalbiga ma laha xuseen dalbile ku soco walaal ayubow horta aniga hadda turkiga markii la joogo maaragtay shaqooyin ima furno inaan ka shaqaysto turkiga ma fahme dadkii oo 6 taama maxay ahayd shaqooyinka xitaa ku adag mugta markay shaqaysanaan luqadina barataa muhiima aniga laakiin ma awoodi meesha inaan ka shaqaysto laakiin waxaan ku fikiray in YouTube aan furto oo aan dhaho walaalahayga caabiya YouTube-kaas ii share gareeyaan garab igu siiyaan insha Allah mid kale waxa jirto ayubow dad badan horta bini'aadamku waxa waaye markay soo hor fariistaan kamerada iyo waxay iska dhigaan maxaa la dhahay sheeg maxaa la dhahay maxay qushuucayaan waxay iska dhigaan dad kale iska dhigaan oo maskiin iska dhigaan laakiin maalintii cameras kor maxay ka tagaan waxa waaye kaali arag telefoonada ma qabanayaan waa dadka telefoonada dadku ugu horeeya waa dhageysta waay marka kullay ayub wallahi xaqiiqatan maalintan ayub kuma ilooba ugu taariikhda ku xusi doonto wallahi maxay xitaa hadaan maxay sheegin ayub maxaa la hayay taariikhda ku xusi doonto maalintii club house adaa xasuusitid ayub wallahi isma dhihin ayub ku soo wacaayo numberka check meesha markaad iga dhehday ayub waxaan isdhahay waa war Soomaali waa iska soco Soomaalidu waxa la dhahaa qawda maqashii waxna ha u qaban Soomaa ayub ha walaal ha hadda saasayta wallahi ayub waa ku soo wacay marna misdhihin ma fahme numberkaaga page ku saarna soo raadiyay deen waxa ogaaday in muddo aaga maqneed WhatsApp waxaan sida iska daa kulli waa arki doontaa niida ma gashinin ila YouTube-di kora hore u soo arkay isma dhihin ayub laakiin ilaahay amarka wuxuu qoray in ayub soo waco ila soo xiriiro ma sha Allah ayub waa kaaga mahad celina wallahi xaqiiqatan waxa ka fiicanta YouTube badan maxay ahayd telefoonada ugu dhageysta qaarkood aan la hadlay oo markii arinteed u sheegtay oo maxay ahayd gaabin sameeyay laakiin adduunyo wax walbo waa loo joogaa aniga maanta uqdad uma qabi walaalahayb waaye haddii maanta ila soo xiriran radio wahay haddii wax iga soo baahdaan adduunku waa la isku baahdaa أنا والله حقيقة نيدي أني فرنت عليه لا يوتيوب ليه صورنا دعبنا حسين آدم كأجا مهد علنيا ولا سيد الشرفت له آد معركتي وشكتي وناجيجا أنا حقيقة مجعل إن معركة قف عن بلان كقاضو أو بلان بين عن كقاضو قف كأني هذا لا بلامو بلان كواقو فيها sidoo kale aniga sida aad sheegtay club house habeenkii aad igu aragtay tirayo Carlos walaal waxaan rabaa inaan caawido oo aan ii sheegtay inaad tahay nin aragala aniga habeenkii waxaan go'aan ku gaaray in maaragtay wax walba oo niyadaada adiga ay ku qanci karto ama habi ah ku noqon karto ama si walba oo aan kaaga caawi karo farxadaada ama higsigaaga ama waxa aad doonayso waxaan go'aansaday in maaragtay aan kala shaqeeyo haddii ay jiraan rag YouTube isticmaala ama YouTuber ah ninkan walaalkeen ah Xuseen Dalbile oo la hadlay kana qabo way telefonka Xuseen Dalbile waa wiil Soomaaliyeed waa wiil maskiina waa wiil walaalka waxa rabta sameey laakiin ninka ragga ah
lama ciilo maalintuu ku baahan yahay ama garab uu ku weydiisto waa la siiyaa haddii aad awoodo muuqaal aad la duubto oo aad bartaada soo dhigto si dadku ay maaragta u arkaan wiilkan ama youtube-ka uu uga bariiseeyo annaga dhan waa ka bariiseynaa wax la qarinayo ma jirto youtube qof walba wuxuu usoo galaa irsaqad inuu ka helo waxaan lacagtan youtube-kana ma ahan lacag adiga aad bixinayso waa lacag ay bixinayso shirkadda youtube-ka maadaama uu yahay ninkaan nin xirfad leh awood u leh inuu hadlo awood u leh inuu maaragta muuqaalka asaga gacantiisa ku editing garaysto asagoo arag gala weliba walaal waxaad ka xaasida ma aqaano waa tahay intaasna waxaa noogu eg waraysigii aan la yeelanay xuseen dalbile oo ah wiil youtuber ah misne la araga xuseen dalbile fadlan youtube-kiisa waa kaa subscribe saarta waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan caawi walaalka oo Soomaalidu ha is caawido ha isku naxariisato keena indhaha la keena jiiska keena jiran keena xanuunsan maalinta uu kaaga baahan yahay inaad caawido ha ka tagin ha inkirin ha u jaakirin ha yasin waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad horay ila joogtay waa ku mahadsantahay haddii aad nagu cusubtahay fadlan nagu soo biir oo subscribe saaro channelka kambareelkana u furo si aad ula socoto muuqaal walba ee aan soo geliyay barteeda youtube-ka ciao